jidadkiina aad bay u xidhan yihiin dhalinyaradii bajaajta waday oo fara badan oo kumanaan ah nooc kasta laga helaa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xogihii ugu dambeeyay ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ka taagneyd sida aan dhawanahanba la soconay godood u dhaxeeya bajaajlayaasha ama wadayaasha waxa loo yaqaano moota bajaajta ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale lamaha ammaanka oo halka isku dhacyo iyo dilal aan kala sooc lahayn oo si tarab magaalada uga dhacayay loogu geysanayo wadayaasha iyo dhalinyarada iyagu markaas ku xoogsanaya wadada moota bajaajta saynu la socono dilal kala duwan ayaa ka dhashay magaalada muqdisho inta ay dhibaatadaasi socotay ee askarta iyo ay wiilasha wadayaasha moota bajaajta loo geysanayo cabdiraxmaan ayaa ku hayay indhaha xaaladaas oo igala qayb qaadanaya barnaamijka cabdiraxmaan ow sidaynu la soconayba dhibaato ayaa ka jirtay magaalada muqdisho oo lagula geysanayay wadayaasha moota bajaajta dhalinyarada iyagu markaa ku ganacsanaya dhibaatada bal maxaa xogha ugu dambeeyey maxal ma laga gaadhay mise sidii ayay u taagan tahay maxaa cusub bismillah waxaa jirtaa wadayaasha bajaajta magaalada muqdisho aad bay u tira badan yihiin magaaladiina amnigeedii aad buu halis u yahay jidadkiina aad bay u xidhan yihiin dhalinyaradii bajaajta waday oo fara badan oo kumanaan ah nooc kastaa laga helaa ku dhib badan ku qalqaaliya ku darooga cabaya ku maandooriye isticmaalaya ku tuug ah iyo ku maxaan ku dhahay shabaab ah iyo nooc fara badan iyo isugu jiraan dawladdii tab iyo waxay u maareysay garan weyn ciidankii magaalada muqdisho joogay faraha badnaa ee jidadku u xidhnaayeen ee amniga iyo al-shabaab iyo jinka iyo jaanka la dagaalamayayna isna nooc kastaa ku jira waxaa loo kala caal waayay si loo kala saaro bajaajleydii iyo askartii qadhoon bay isku hayaan kolba kii qori haystoon baa wax dili ku baaso oo laga daba saydho wadnaha lagu dhufto ku istaag la yidhaahdo diida lagu dhufto ku iskaba socda madfac habow ku dhaco ku gaari jeedo ku dhalinyaro haddana waxaa uun meydkooda lasoo dhigay yacni markii dadku dhinta unbaa lasoo dhigaa aqoon leh jaamacada dhigta maxaan ku dhahayay akhyaar ah oo yacni dee labeentii magaalada ah yaa maalin kasta ku dhimanayay arrin aad u xanuun badan yay noqotay arrintii xanuunka badnayd xal waa loo waayey bajaajleydii baa marka guddi samaystay dhowrtii kun ee bajaaj yaa guddi samaystay guddi 12 aan ku qiyaasayo oo waxay samaysteen dalad guud ah oo golayaal telegram waxyaabaha la isugu yimid amarkii halkaa ka baxa deetana si loo fuliyo cabashooyinkana si la isugu soo gudbiyo dhibabka jirana si la isugu soo gudbiyo way isku xidhmeen intoodii badnayd guddigii maalin dhaweyd u dambeysay marka wiil baa si xanuun badan loo dilay muqdishona waa magaalo inaga cilmi badanoo wax kastoo dhacaya wuu duuban yahay bal adu cid duubtay garo wax kastoo dhacaya wuu duuban yahay wiilkii oo bajaajtii wata bajaajtii gudana xabadda lagu rido dhac isagoo meeyay gaadhiga kasoo duulaya bajaajtii yaa la duubay muuqaal qaraacan labu ahaa aad baa la isula dhex wareegay magaaladii dee magaalo ruuxantay ee noqoto qalbiyada dadka bini'aadamkaana aad muuqaal u gilgilay buu ahaa xanuun badan muuqaalkii kadib waxay maanta ku ballameen mudaharaadka ugu weyn inay magaalada ka dhigaan mudaharaad dad dhigay la garay oo ama sun baa lagu kala didin ama waxbaa lagu kala didin mudaharaad bajaaj dhigtay si la yidhaahdo iyo tab loo maareeyo la heli maayo jidkii bay hayaan waana biro wax kala cararina ma ah haddii caaw bil hadday meeshaan fadhiyaan lama marin karo lama nadiifin karo oy furayaasha iskala tagaan iyagoo bajaaj ah magaala tuuladii waxaa u sawirantay wixigii laamihii ammaanka muqdisho in xaaladdu ay xakirmi hal qaraxa intii lagu soo dhex qariyo iyaga dhanba ay gaaguun beeli karaan isu socodka magaalada hal maalin istaagay dhibaatada uu leeyahay dawladdii marka hawshaas culays adag bay ku noqotay waxay raadisay dawladdii raggii guddiga ahaa ee bajaajleyda xukumay ee 12 ahaa ku-xigeenka amniga ee gobolka banaadir taliya yabo yaa u yeedhay raggii shir bay wada galeen saddex qodob yaa heshiis laga gaadhay heshiis hordhaca yaa 3 qodob laga gaadhay cabashooyinkay wateen wuxuu ahaa 12 saqbarka marka la gaadho xamar waa caasimada xilligaas magaaladu aad bay u shidan tahay waa la seexiyay hal bajaaj oo socda haddii la arko xabad baa ku dhici 12 saqbarka
inaga jigjiga waa feedba sideedda fiidnimo laga 8 fiidnimo bur baa lagu bilaabaya iyagaaba loogu daraan oo saqbar la siiyey iyagoo haddana magaalo amni xun jooga ilaa saqbarka waa lana kala seexiyaa laakiin magaaladii mayna seexanin oo way shidan tahay middaas cabasho ay wateen bay ahayd midda kale dilalkan soo noqnoqday joogtada ah sidii loo xallin lahaa iyo askarigii dilka geystay sidii cadaalad loogu horkeeni lahaa dhanka kale dowladduna waxay wadatay mudaharaadkii berri ahaa maanta ahaa ee sabtida ahaa inuu baaqdo dhowrtii qodoba dhinacyadu way isku afkarteen dowladdu waxay sheegtay in 1 saac loogu daray xilligii bandooga oo 1da saqbarhka ah looga dhigay ama 7da saqbarhka looga dhigay inta bisha ramadaan ka horeysa bisha ramadaanna la isu fasixi doono ilaa waa berigii 24 saac looga dhigay dowladdu qodobkaas intaas yay kaga jawaabtay middan kale ee askarigiina waxay tiri maxkamadda la horkeeni sharcigaana la waafajin inayna mar dambe dhicinna waa laga shaqayn hawshaa dilkeeda soo noqnoqotay middii u dambeysay iyaguna waxay aqbaleen inay aynan sabtida isu imaanayn maadaamay dowladdii wada hadleen shir jaraa'id ay qabteen oo ay magaalada xamar ku qabteen yayna arrintaas kaga hor akhriyeen guddidii bajaajleydu iyo dowladdii oo wada socda hawshaasoo hawl aada u xanuun badan ahayd oo dee dhib fara badan iyo xanuun iyo qaracan weliba dee aada isdhihi xal looma hayo fajac keentay xamar waxaad moodaa in hawshaas xal hadda loo helay laakiin waxaa la fiirin doonaa siday u dhaqan gasho labada dhanbana dhaliiluhu way ka imanayaan bajaajleydina dad dhib badan wuu ku jiraa oo haddee dhib oo dhan hadda jigjiga gabdhaha la dhacayo afduubka maxaan ku dhahay hantiga la dhacayo bajaajtaa qaybka ah oo weliba dee dhalinyaro waxaa jirta si kaleba aanu wadine saqda dhexe weliba saa sameeya oo fiidadka dambe waxaa loo joojiyey falal ku sameeya oo dad ku afduubta oo maxaan ku dhahayay ruuxay qaadaan intay meel geeyaan siday rabaan ka yeela askartana haddii askari ruux shacaba oon hubaysnayn xabadu intuu ku saydho dilaya iyadana wax argagaxeeda labay ahayd marka aad baan usoo dhaweynayaa in ay dowladdu iyo bajaajleyduba ay xal ka gaadheen walow la fiirin doono aad wadnaha farta loogu hayo sida uu u dhaqangeli doono iyadoo ciidanka xamar dhaqankiisa la garanayo iyo dee isagiina la yaab maloo ciidan lala dagaalamayo oo bajaajka u yimaadaaba isku qarxinayo oo gaadhigu istaagi dhada istaagi waayaaba isku qarxinayo inuu intuunan isqarxinin iska gaadhi isleeyahay unbay u badan tahay marka taas la yaab ma laha waan gartay cabdiraxmaan askarta laftooda sidaynu sheegnayba waxay isugu jiraan askar bulwad leh amaba askar dee darooga iyo waxyaalaha isticmaala iyo askar fiican ra-iisul wasaarahoo hadlay xalay oo isaga laftiisu shirarkan daba socday askarta in la hubin doono oo joogbeentiyada askarta la dhigaya ay noqdaan kuwaan bulwadland ay ka hadleen askarta arrintaas dowladdu say uga dhameyn kartaa baa la dhihi karaa in goobaha la keeno askaran bulwadland dowladdu waxay bedeshay taliyihii booliska ee guud sidoo kale waxaa la ogaaday silsilad isku xidhnayd oo ilaa iyo kontaroolada magaalada laga soo galo ilaa iyo magaalada bartankeeda checkpointiyada askarta jooga jain dhisan oo qarxyada soo geliya oo lacagtooda ka qaata yaa la ogaaday shabakadii waa la burburiyaa askar fara badan baa la xidhay askar fara badanna way baxsadeen askar fara badan oo kalena waa lagu daba jiraa baaritaan baa lagu hayaa dhibkii faraha badnaa askartu ay lahayd taasaa ka mid ah layntan dadka la laynayana waa mid kaloo ka mid ah marka isbedel askartii waa lagu wadaa askar fara badan shaqada laga fadhiisiiyey taliyihii guud waa la bedelay askar fara badan way xidhan yihiin kuwo laftooda inay maxkamad la saaro la toogtay waa ay dhici kartaa xoguhuna way sheegayaan soo gaarhaya marka isbedel guud oo dhanka askarta ah xamar buu ka socdaaba waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkii xog waran oo aan kaga warramaynay xaaladda muqdisho iyo bajaajleyda oo cabashooyin halkaasi ka taagnay muddooyinka u dambe laakiin aad hadda moodo in afgarad halkaasi uu ka dhashay xagga dowladda lamaha ammaanka iyo bajaajlayaasha oo iyagu samaystay guddi ka shaqayn doona sidii arrimahaas wax looga qaban lahaa intaan barnaamijka ay ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo